shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhamaanba waxgaradka kala gadisan ee baashaasi ayaa waxa lagu qabtay hotel kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi xaafadda Soomaalidu ay degtay Islii. shirkan ayaa waxa laga soo saaray baaq ku wajahan shir lagu wado in lagu qabto magaalada Nairobi. shirkaasi oo lagu wado in looga hadlo xaaladaha ka jira waqtigani gobolada Sool, Sanaag iyo waliba Cayn. baaqan oo ka kooban 4 qodob ayaa ku talinaya in shirweynaha la damacsan yahay in lagu qabto magaalada Nairobi caasimadda dalkani Kenya, isla markaasna looga hadlayo xaaladaha goboladaasi ay haboon tahay sida ay soo jeediyeen xubno markaasi ka hadlayay shirkaasi in lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya si bay dheheen fursad loogu helo dhamaanba dadka ku abtirsada goboladaasi inay fikradahooda ka dhibtaan kulankaasi. dhamaanba mas'uuliyiinta kulankaasi ka hadlaysay ayaa hadalladoodu waxa uu badnaayeen kuwa markaasi ay door bidayaan in shirweynahaasi lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolada markaasi laga hadlayo arrimahooda. qaar ka mid ah siyaasiyiinta goboladaasi kuwa ugu caansan oo goobjoog ka ah shirkaasi ayaa waxa ka mid ah siyaasiga la yiraahdo Cali Baashi Xaaji Maxamuud oo isagu halkaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo markaasi uga hadlayo arrimaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo waliba fikirkiisa ku aadan shirka la filayo in dhawaan lagu qabto magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaasna la wado inay ka soo qayb galaan dhamaanba beelaha ku abtirsada goboladaasi. Cali Baashi Xaaji Maxamuud oo kulankaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa hadduusan waxyeelo lahayn iminka waxa la kala jiraa Puntland, waxa la kala jiraa Somaliland, waxa la kala jiraa Al-Shabaab, rag baa inoogu jiro ordaya oo aan ogahay magacooda aan aqaana, waxa la jiraa federaalkii qolo shanaad oo soo korodho halka ordaysa wax dan oo ku jira ma jiraan run ahaantii. laakiin in la isu keeno oo dadka la isu keeno yaa loo baahan yahay. saa darteed shirkan waa shir beeleed oo la iclaamiyay wala la joogaa. mar haddii la joogo wixii ka xun in la saxa mooyaane xaasha kalilaahi ma dhihi karaayno inagu ma dhihi karo waa boycott gareynaa waa joojinayna laba dani kuma jirto. laakiin hal la hagaajiyo waxaan u malaynayaa odayaasha soo qalqaaliyay meesha joogaana waa mahadsan yihiin, gabdhaha ka soo qayb galna waa mahadsan yihiin, dhalinyarada xooggan leh maanta halka fadhidana waa mahadsan yihiin. kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno aad u badan oo markaas isugu jira siyaasiyiin, cuqaal, waxgarad, dhalinyaro iyo waliba bulshada kala gadisan iyagu markaasi kulankani ka soo xaadiray ayaa waxa uu ahaa mid ku soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan. Libaan Cabsalaan, telefishinka ETN, Nairobi.